warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda Jubbaland iyo Puntland iyo inay ka hadlaan wixii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa ahayd maalmihii ugu dambeeyay mid aad loo sugayay. warmurtiyeedka madaxda Jubbaland iyo Puntland oo soo baxay xilli dambe oo xalay ah ayaa lagu sheegay wadahadal dhanka telefoonka oo labada mas'uul ay yeesheen inay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka. wadahadalkaas oo si gaar ah diiradda u saarayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirkii Dhuusamareeb 3. warmurtiyeedka ayaa lagu baahiyay ilaa 4 qodob oo labada mas'uul ay isla gaareen sida lagu muujiyay qoraalka. qodobka ugu horeeyo ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay ayagoo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha cadeynayaan in qodobada qoraalkii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 19 Agost sanadkan 2020 ee ku aadanaa soo jeedinta hanaanka doorashada dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qayb gashay shirka oo ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. qodobka labaad ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay cadeynayaan inaysan qayb ka ahayn laguna metelin shirka Dhuusamareeb ka dhacay. 3 dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada 2020-2021 ayna noqoto mid waqtigeedii ku dhacda si isla ogol ahna looga heshiiyo hanaanka loo marayo qabsoomidda farsamo iyo maamul ee doorashada. qodobka ugu dambeeya ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay beesha caalamka uga mahad celinayaan taageerada ay sida joogtada ahi ula garab taagan yihiin dadaalada geedi socodka dib u dhiska hay'adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah si loo helo xasilooni siyaasadeed, amni, dowladnimo wanaag iyo